idinku oo jooga waliba saad ii sheegtay maalinta hore jigjiga ayaa joogtay shaqaaqadu dhacday maxaa koosgareeyay in la idin kala dhaxbaxo haddii aad tirada inta leegtiin horta runtii waan ka xumahay arrinta aad u fahanteen ma aha runtii waan ka cudurdaaranayaa inaad u fahantaan ma aha xaqiiqada jirtaan ku sheegay cabdi maxamed cumar sida lagu qaaday haye cabdi maxamed cumar mission baa loo dhigay si nabadgelye abuuna airportka garaadwilwaal kaga duulay waana la mishimay xaggaa markuu tegayna waa la qabtay waa la xidhay xoogna laguma kaxaysan qaab kalena laguma kaxaysan ciidanka keliya saraakiisha keliya maalinta jigjiga joogtay baa 7,000 kun oo askari ahayd 3,000 oo askari oo 7,000 sarkaal baa joogay iska daa ciidanka tiradii saraakiisha markaa ka hadlayno madaxweynihii deegaanka marka la kaxayn doono ee shaqaaqadu dhacday federaalka meesha yimid 3,000 oo askari kamayna badnayn baanu xog ku haynaa idinkuna waa tiro badnaydeen sida naloo sheegay laakiin waxa la idinku eedeynayaa inaad ahaydeen dad u rabaysan gumaysiga shacabkooda oo keliyana u hanjaba hal askari oo xabasheena ka baqa dhaliil miyaana idinku ahayn in la idinka dhax qaaday idinkoo tiro ahaan gaadhayay 30,000 in ka badan sida aanu xog ku hayno askarta federaalkuna ay 3,000 ahaayeen walow la sheegay markii dambe inuu gurmadu yimid askarta horta federaalku horta nafina naf kama geysana nafina naf min qof waliba naf wata qofna naf isleera ma wato askarta anagu ma naqaana ka cabsanay waad ugu maalin shaqaaqadu dhacday inay jid aanu marro noo baneeyay afkooda laga gatay oo ay hubka dhigayeen si dadka iska daa anaga dadka shacabka hubka ka qaadanayeen madaxweynaha naga hortaagnaa anagu inaanu xabad ridno saasayna xabadii ku baaqatay markii dambena hawl uu isagu rabitaankiisa abuu meesha ku tegay xoogna laguma kaxaysan xoogna looma adeegsan markii xagga uu tagayna si la doona laga yeelay marka aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan codsanaynaa in si degdega loo soo celiyo madaxweynaha taliyihiina waa kuma imika ciidamada liyu booliska haddaad tihiin